waxa uu iska diiday inuu garabka ku xirto calaamadda u gaarka ah qolyaha qowmuluudnimada. waxa uuna muran iyo hadalhayn ka dhaliyay dhammaan ciyaaraha kubadda cagta ee dunida, gaar ahaan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Qofka aan ka hadlayo waa Sam Morsy, kabtanka kooxda Ipswich Town oo ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska ee Premier League, kaas oo noqday toddobaadkii la soo dhaafay qofkii ugu hadalhaynta badnaa baraha bulshada. 2 daqiiqo ee soo socota kaga bogo sheekada ciyaaryahankan geesiga Muslimka ah iyo ciyaaryahan kale oo isagana sameeyay ficil kale oo cajiib ah ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Sam Morsy waa Carab Masaari ah laakiin ku dhashay dalka Ingiriiska, balse damiirkiisu uu nool yahay, diintiisana aad uga adag. waxa uu iska diiday inuu xirto calaamadda kabtanka kooxda oo lagu xardhay midabka ay qaniisiintu caanka ku yihiin ee rainbow-ga. Horyaalkan Premier League ayaa dhammaadka sanad walba buunbuuniya, isla markaana xayeysiiya oo taageero u muujiya wax loo yaqaano LGBTQ+, ama haddaan si kale u dhigo qowmuluudnimada. ololahan lagu taageerayo qoladan ayaa soo bilowday 29 bishii aan soo dhaafnay ee November, isagoo oo socday 6 maalmood. waxa uuna ku ekaa 5 bishan December ee aan ku jirno. si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka Masaariga ah ayaa iska diiday xirashada calaamadda kabtanimada oo ay ku xardheen midabkan idin muuqda. ciyaartii kooxdiisa Ipswich ay guuldarrada kala kulantay kooxda Nottingham Forest, iyo kulankii xigay ee kooxdiisa ay marti qaaday kooxda Crystal Palace, isagoo oo si cad ugu sheegay maamulka kooxda Ipswich in arrintan uusan samayn karin, diintiisana aysan u ogolayn. kooxda Ipswich oo taageero weyn u muujisay ololahan lagu taageerayo qolyahan qaniisiinta ah ayaa sidoo kalena garab istaagtay kabtankooda Morsy, waxayna sheegtay inay ku ixtiraamayso diintiisa. sidoo kale ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Manchester United iyo xulka Morocco ee Noussair Mazraoui ayaa isagana iska diiday xirashada jaakad ay ku xardhan tahay calaamadda rainbow-ga ee qowmuluudnimada ka hor kulan ay kooxdiisa la lahayd kooxda Everton 1 bishan December. kooxda Manchester United ayaa qorsheynaysa inay xirtaan jaakadan idin muuqata ka hor kulanka ay la ciyaari lahaayeen Everton, iyagoo rabay inay garab istaagno ugu muujiyaan qoladan isku jinsiga ah ee wax iska raadiya. laakiin Mazraoui ayaa iska diiday xirashada jaakadan, taasoo keentay in guud ahaan ciyaaryahanada kooxda ay iyagana diidaan si ay u garab istaagaan go'aanka ciyaaryahanka Muslimka ah. kubadda cagta ayaa noqotay il dhaqaale badan laga sameeyo, sidoo kalena inta badan reer galbeedku ay ku gudbiyaan fariimaha xunxun ee lidka ku ah diinteena Islaamka. hase yeeshee, ficiladan wanaagsan ee ay sameeyeen labadan ciyaaryahan ayaa usbuucii lasoo dhaafay dhaliyay hadalhayn xooggan, iyadoo ummadda muslimiinta ah ay aad ugu riyaaqeen go'aamada Morsy iyo Mazraoui.